السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حسن عبد الله عمي وكم قاعد إرشاد حسن عمي. أيام ما أنت وعن كسونا إلهي مهدي أنا كي ما ذي تركيا وأفر بلاد مقنع. أيام وعن كسونا حفدي دجارس وقلت على بول حجر. قلبت أيام ماشي نسقو معنا وأخيار بدني علماء مدح بدن نسقو معني. هذا أيام جاري كسو دجنا أركهيسين ماشي يالو. gaarigana waxa iska leh walaalkay Sheekh Yuusuf Beder adu taqaanaan khayr Allah siiyo jimcada ayaan ka soo degnay garoonka Jomo Kenyatta International Airport jimcada ayaan ka soo degnay halkan Nairobi ayaan imaanay saaka ayaan ka soo baxnay diyaarad ayaan wiilka inaan ku keeno Sheekh Yuusuf khayr Allah siiyo Beder ayaa gaarigan soo saaray wiil ku soo galbay ilaa Gaaris هذا وحن كسونا هاي جارس. السلام عليكم وأنا سالم حسن عبد الله يعني بريا مدام عيسى حسين لا خير أنا سيء. أنا حسن عبد الله عمي وكم قاعد إرشا حسن عمي ماشان قلبتها وحام فردنا جوري جيد أو كويا لجارس. سادك سنتين مدوان مقنع إلى أفر بلاد وطن كتركيا يعني كم مقنع. درها الجمعة هذا قدام بيسي أيان ما أرتكسو دقني قرانك إنترناشونال جومو كينياتا إيربورت ما أنتنا وحان كسو أنها يقولي دا قارس أخيارتني علومدن يا أضياشن أداركتين ماشي اسكوه مادينه أرنتي ويلكي سالم حسن عبد الله ويلكي دا أندلايو إنت كهر إذا عاد السوشيال ميديا آد أرميسا دا ولا سعوتين أيان درتد ماشان قلبت عنوي معني خير الله سيو مركا كواد وذاك جاري هدا أداركيسين شيخ يوسف بدر ayaa wiilka soo qaaday arbacada ayaa la rabay diyaarad lagu keenay masuul galin oo xogaa way nagu yar fogaat waqtigi sheekha waan u duceynayna khayr Allah siiyo wiilkii Saalim Xasan ah waad aragtiin ma sha Allah safartii hore markii aan inii soo direynay social media ka fiirsanayseen asoo jiifo oo xaaladiisa iyo arrimihiisa aad u liitaan ayaad arkayseen maantana ma sha Allah waad aragtiin waxa fadhiyo wiilkii wax fara badan oo hadda aan ka warbixin karin ayaan la soo marnay لح تضبط إسبتال بان لح إسبتال بان كي تضبط بان كو أبريشين إسطنبول إنت هكذا لاوني بان أنكرا أنجونا أفر بلاد ما شاء الله وحبنا عن مرنا ويلك وحلقة صبارة من أول إلى آخر حنون عذرات بني آدم كون عن نوعية ضادي ورتم بالغ صبارة ودناها وحنك شكل ما سديد صدق يسديد عذر بالغ بارة أقل جيس هتا أنتو دنياي رجع نمدي ساتا أنت إذا أنتهاي siday tahay waxa soo dhan baa laga soo baaray alxamdulillah oo dambeyntii wiilkii lixnin oo dhakhtarin oo professional ah ayaa markii u dambeysay wiilkii kabeen oo arintiisu isku imaadeen lugtan hadda aad aragtiin ee midigta ah waa lugtii berigii aad arageen ee birta ku xirneed waxa lagu kabay computer 2017 uu adduunka oo dhan ku hor lahaa oo ku cusubaa ayaa lagu kabay wiilkii laba sano iyo bar ay birta ku jiri lafihiisana lagu qiyaasay lugtanaytana waxa lagu kabay computer waka laba bilood bacdigeed ba x-ray la saaray ka dambe 3 bilood bacdigeed ba laga bixin ba 3 bilood bacdigeed waxa la rabaa iskii inuu u socdo hadda waxa loogu talagalay inuu gaarigan ku luluudo ku socod barto intii waqtigii loogu talagalay uu ka gaari wuu socon kara hadda iskii lugta midigta oo kale waa diyaar baa leeyahay hadda waxa ma dhino laakiin lugtana wali waqtigeeda aan la helin marka gaarigan uu ku socod barta loogu talagalay oo ku luluudo 2 bilood 3 bilood ugu dambeeyna waxa la rabaa iskii inuu socdo ما شاء الله walaalaha muslimiinta aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayna waan u duceynayna daawo oo 9 bilood u isticmaalayna waa la siiyay xanuunkii waagii asaga ahaayeen markii idaacada aan ka sheegaynay dhakhaatiirtii meesha aan ugu tagnay waa professional bay ahaayeen oo nooc walba takhasus leh nooc la falay nooc walba leh way isku khilaafeen warkii oo kooban qaar waxay dhaheen xanuunka asaga meesha noogama muuqdo qaarna waxay dhaheen xanuunka asaga wuxuu u baahan yahay research markay baareen way hadii kuwa dhihi ugu ma qabo xanuunka noogama muuqdo meesha waa markay baaritaankooda sameeyeen kadib kuwa qaarkood waxay dhahan xanuunka sida lagu ogaan karo waqti dheer buu qaadan waxaana keeni kara isbitaalada jaamacadaha leh ba arinta ayada ka warbixin ka keeni karaan researchka ka warbixin kara ka warkeeni kara tii ayada ahayd markaa ma suura gelin dhakhaatiirtii lixda ahaa ee isku imaadeen warkoodii baan ku camal falnay wiilkii ma sha Allah waxa way kabeen adduulayna 3 bilood bacdigeed waxaan rajaynaynaa inuu isku u socdo 2 bilood x-ray baa la saaray 3 bilood bacdigeed in lagu celiyo meeshii dhakhtarka asaga ahaa lagu celiyo baan rajaynaynaa waxyaalo yar oo cilay sheegeen oo adduulay waxay dhaheen horta qof bini aadam lafa xanuun lafa markuu imaado
saad u fikiraysiin iyo saad moodaysiin ma aho waqti dheer buu qaadan qofka isbedelkiisa 9 bilood baa hadda loo qabtay daawo isticmaalaya 3 bilood buu soo isticmaalay 6 bilood oo kalena way u dhiman yihiin daawada markuu qaato ka dambe 9 bilood la ogaan laakiin arrimihiisa way qaadan karaan ilaa 5 sano ilaa 10 sano way isbedelka rasmiga ee xilliyadaas la arki karaa sababtoo meeshan sintana wax baa jira meeshan labada anqow meeshanna wax baa jira waxay dhahan wixina step by step way ninka uu bajiifay horta bal ninka nin socdo ha noqdo oo dantiisa iyo hawshiisa qabsado waxbarashadiisa iskuulkiisa iyo madrasada dugsiga waxbarashadiisa nin aad ha noqdo marka ka dambe wixii kale si tartiib oo insha Allah u dhicay marka khayr Allah ina si hadal iyo dhamaantii galabta meeshan oo casarka aan joogo gurigeyda aan joogno walaalaha muslimiintana ay isku imaadeen aqyaar iyo culimo iyo odayaal iyo siyaasiyiinba madax isku imaadeen nooma suuragelin madaxdeena Gaaris oo uu hogaaminay Aadan Barre Ducaale iyo ninkii gafanaheeni iyo MByaasheena Gaarisa County inay galabta nagala joogaan meeshan noomay suuragelin waxooga aniga yaraad soo degdegsan marka Nairobi joogo mashquulkan u badnaa xilliga uu garoonka ka soo degana xilli habeenimo ee 10 saac iyo 10 daqiiqo ee ma suurageli karo madaxdii laakiin appointment shalay warkii waan wala siiyay masajina waan u wala diray insha Allah khabarka way qabaan markii alla marka waxay dhaheen Gaarisa aan imaano waan imaan doonaa wiilkii insha Allah waan soo ziyaaran doonaa tooda ayada marka madaxdeena iyo siyaasiyiinteena way u dambaysaa galabta marka meeshan culumadeena iyo odayaasheena iyo madaxdeena ayaa meesha isku imaadeen inaan u mahad celino khayr Allah si walaalihi muslimiinta gobolka guud ahaan khaas ahaan Gaaris iyo Nairobi looma kala harin wadanka iyo dal iyo dibadda maxad oga saaray walaalihi dibadda ehelka ahaa kulli looma kala harin wiilka arintiisana aad baa dhagta loogu taagayo nin walba intee baa u dambeysay wiilkii muxuu falay uu nin walba laha khayr Allah ina si wakaas wiilkii hadii aad rabtiin wuu socon karaa hadii aad rabtiin wuu istaagi karaa hadii aad rabtiin wuu fadhin karaa odayaasha khiyaarta hadda meesha la joogo waxay leeyihiin ha iska fadhiya iska daa waxba ka leefin